daawadayaal qaabkan idiin muuqda waa mid ka mid ah qaababka difaaca cirka ee dowladda ruushka. qaabkan markiisii ugu horreysay waxaa soo saartay dowladdii midooda Sofiyeeti oo ay dowladda ruushku beddeshay. markii ugu horreysay waxa uu shaqo galay 1980kii. xilligaana dowladda midooda Sofiyeeti waxay u xilsaartay qaabkan inuu ka hortago gantaalada kruuska ah, madaafiicda xirfadaysan, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo weliba diyaaradaha aan duuliyuhu wadin. qaabkan ayaa waxa uu yahay mid adduunka looga yaqaano inuu yahay dhagarqabe. waa qaabka looga shakisan yahay inuu soo riday diyaaraddii Malaysia 17 oo iyadu ahayd diyaarad 17kii bishii toddobaad sanadkii 2014 lagu soo riday bariga dalka Ukraine, ayna ku geeriyoodeen dadyo ka badan 283 qof. qaabkan ayaa waxa uu kala baxaa qaybo badan. qaabkan ayay ugu talagashay dowladda ruushku inuu ka sarreeyo xoogaa qaabkii kale Panzer aynu hore u soo aragnay, waxaana uu ka dagaalami karaa 30 kilomitir. diyaaradda iyo gantaal cadow soo riday oo dhulka u soo jiirsada 30 kilomitir waa mid ka hortegaya burburin karayana. madaxa uu isticmaalaya ayaa waxa uu yahay madax culayskiisu ka badan yahay 70 kiilo. sidoo kale waxa lagu kalsoon yahay howlgalka loo diro inuu ku guulaysanayo 85%. qaabkan ayaa waxa uu kala baxaa qaybo fara badan, qaybahaasoo ay ka mid yihiin ankay qayb badda oo ay isticmaalaan ciidamada baddu. qaabkii ugu dambeeyey ee dowladda ruushku casriyeysay waxa uu ka dagaalami karaa in ka badan 50 kilomitir. qaabkan ayaa waxaa jira dowlado badan oo koobi ka samaystay, waxaana ka mid ah dowladda Belaruush, Iiraan iyo weliba dowladda Ukraine oo dhammaantood ku wada guulaystay inay koobiye ka samaystaan. waxaa jira ilaa 5 nooc oo ugu talagashay dowladda ruushku in lagaga dagaalamo badda. markay noqoto iibkiisa waxay ka gaday dowladda ruushku dowlado aad u fara badan, waxaanuna dowladaha ka xusi karnaa dowladda Algeria, Armeniya, Azerbaijan, Belarus, Qubrus, Masaarida, Georgia, Hindiya, Kazakhstan, Iiraan, waqooyiga Kuuriya, Bakistan, Shiinaha, Suuriya, Ukraine iyo weliba Venezuela. dowladahaasoo dhammi waa kuwa haysta qaabkaas oo ah mid ay isku hadlayn karaan inuu ka difaaco khatar u jirta 30 kilomitir. inkastoo qaabkan dowladda midooda Sofiyeeti ay siisay 96% gebi ahaanba inuu ku guulaystay howlgalladii ay u dirtay, haddana mar walba qaabkan lasoo hadal qaado dadyowga adduunka qalbigooda waxaa durbadiiba ku soo dhacdaa diyaaradda ay saarnaayeen dadka rikaabka aan waxba galabsan ee loo adeegsaday qaabkan in dhulka lagu soo dhigo. inkastoo dowladda ruushku arrintaa ay iska fogeysay kuna eedaysay dowladda Ukraine, sheegtana qaabkii ay koobiyahaanta u samaysteen inay ku soo rideen aanay dowladda ruushku ka dambayn. horena looga baran dowladda inay soo rido diyaaraday saaran yihiin dad aan waxba galabsan. markaynu ka hadlayno diyaaradda Malaysia laga lahaa ee lagu soo riday dalka Ukraine laguna eedeeyey dowladda ruushku inay ka dambaysay, ayaa waxay tahay mid warbixinteeda ay warbaahinta ku faafiyeen dowladaha reer galbeedka. waxaynu ognahay daawadayaal 90meeyadii dowladda Maraykanka qudhadeedu inay dhulka soo dhigtay diyaarada ay Iiraan lahayd, dadyo 200 oo qof ka badanna ay saarnaayeen, iyadana aanay jirin dowlad ku eedaysa.